maxaad ka taqaanaa awoodda ciidan ee dalka Turkiga? Gantaalada S-400 ciidanka dhulka ee militariga Turkiga ayaa kaalinta toddobaad waxa ay ka galeen ciidamada ugu awoodda badan ee caalamka. Taangiyada dagaalka ee Turkiga ayaa gaaraya 3200 halka baabuurta gaashaaman ee dagaalkuna ay gaarayaan 9500 oo baabuur. Ciidanka Turkiga ayaa sidoo kale leh madaafiicda goobta oo loo yaqaan artilleriga oo gaaraya 120 350 oo ah hubka ay Soomaalida u taqaano BM-ka iyo noocyo kale oo ah madaafiic casri ah kuwaas oo iskood u dagaal gali kara tiradoodana ay gaarayso 1272. dalka Turkiga oo ay ku nool yihiin dad gaaraya 80 milyan oo qof waxaana ciidanka dalka Turkiga guud ahaan tiradooda ay gaarayaan 735,000 oo askari. ciidanka sida tooska ah u dagaal gali kara ee Turkiga ayaa jariidada Global Firepower waxay ku qiyaastay 355,000 oo askari halka ciidamada heeganka ama keedka ku jira ay gaarayaan 380,000 oo askari. Turkiga ayuu GFB sheegay inay ka mid yihiin 10 dawladood ee ugu awoodda badan caalamka waxaana diyaaradaha ciidanka cirka ee Turkiga lagu sheegay 1067 diyaaradood kuwaas oo isugu jira noocyo kala duwan. diyaaradaha dagaalka ee ciidanka Turkiga ayaa tiradooda waxay gaaraysaa 207 halka kuwa wax duqeeya ay iyaguna gaarayaan 207 kale. diyaaradaha xamuulka ee militariga Turkiga ayaa gaaraya 87 diyaaradood halka kuwa lagu tababaro ciidamada cirkana ay gaarayaan 289 diyaaradood. diyaaradaha qumaatiga u kacay ee loo yaqaan helicopterka ee militariga Turkiga ayaa tiradooda dhan tahay 792 diyaaradood waxaana 94 kamid ah yihiin kuwa wax duqeeya ee warada loo adeegsado. sidoo kale Turkiga ayaa dhawaan dalka Ruushka ka soo iibsaday gantaalada difaaca cirka ee loo yaqaan S-400 kuwaas uu farsameeyay Ruushka si casri ah loo farsameeyay. Second, Steadfast Defender 21 it's about